walaal ilaahay dartii u caawi qoyskan danyarta ah ee dhibaataysan. Hooyo Dhibataysan Faarax iyo 2 caruur oo ay dhashay waxay dhibaato weyn ka soo gaadhay dab qabsaday guriga ay degan yihiin, kaas oo waxyeelo weyn gaarsiiyay guud ahaan xubnaha jidhkooda, isla markaana aanay waxba ka qabsan karin waqti xaadirkan. Haddaba Hooyo Dhibataysan waxay ummadda muslimiinta ah meel kasta oo ay joogaan ka codsanaysaa inay soo caawiyaan iyada iyo 2deeda caruurta ah, maadaama xaaladooda caafimaad aan dalka wax looga qaban karin, isla markaana ay ka sii darayso xaaladooda caafimaad. bismillaahir rahmaanir rahiim. aniga odagayga iyo maxay iyo 3 caruur aan dhalay waxaan ugu gubtay guriga, hase haatee maxay imka waxaan ugu daran 2 caruur oo lagu dhakhtarkan Hargeysa waxba ka qaban waayay, dhakhtarkan waxba ka qaban waayeen, halka waxba laga qaban waayay lagu dhakhtar dibadda geeya, waxa la laxno haynaana ma jirto. walaalayga muslimiinta waxaan ka codsanayaa in maxay dabka igu dhacay maxaa inay iga soo caawiyaan, aan maxay xalaalo xaysanaan jirin, dhakhtar dibadeedna la igu yiri dalkiina waxba laga qaban karo waa inay iga soo caawiyaan man walaalayga muslimiinta ka codsanaya. walaal ilaahay dartii u caawi ugana faa'iideyso khayrka bisha barakaysan ee Ramadaan, maxaa yeelay wixii aad baxsataa bishani waxay ku anfacayaan maalinta aakhiro oo qof kasta oo muslim ah uu u baahan yahay wixii uu baxsaday. tacaawunu 'ala al-birri wat-taqwa wala tacaawunu 'ala al-ithmi wal-'udwan. ilaahay ayaa ina faray in aynu iscaawino oo qofkeena tabaalaysan iyo muslimiinta tabaalaysan wixii aad u heli karto aad ku caawiso. walaal wixii tabarucaad ah ee aad awoodo ugu shub akawnada iyo telefoonada shaashada ku qoran.